بسم الله الرحمن الرحيم waxaan bilaabaynaa mowduucyada caadiga ah laakiin ugu horeyn marka ugu horeysa waxaan salaameynaa shacabka Soomaalida kuwa dalka jooga iyo kuwa dalka dibadiisa jooga mowduuceenu maanta wuxuu noqonayaa inaan wax yar ka dhaxno xanuunka beer xanuunka ama cagaarshow hepatitis B virus oo runtii Soomaalida farabaan ku haya aadna aan loo dareemaynin waa waxyaabaha la yiraahdo public importance aad bulshada muhiimka ugu leh hadda ka hor waan dabcay laakiin ilaahay ma qadarin aan ka hadalno marka maanta xanuunkaas aan wax yar ka dhahaynaa si aan bulshada ugu baraarujino khatarta uu ku hayo xanuunka la yiraahdo hepatitis B virus waa xanuun aad khatar u leh dawana aan lahayn laakiin talaal leh xanuunka marka ugu horeysa haddaan ka bilowno qeexidiisa waa xanuun waa caabuq fayraska uu keeno oo ku dhaca beerka haddaba ahmiyadda beerka ayay noqonaysaa inaan wax yar ka dhahno xanuunkii maadaama nidhi wuxuu ku dhacaa beerku muxuu dadka u qabtaa beerka hadduu caabuq ku dhaco ama kansar ku dhaco ama uu noqdo cirrhosis uu ku dhaco marka dambe uu adkaado uu shaqadiisii gabo qofku ma noolaan karaa maya beerku muxuu qabtaa markaa beerku wuxuu qabtaa ugu horreyn waa meesha lagu karkariyo cuntada marka aad cuntadu qeyrina ma cuni karno marka cuntada aan cunno iyadoo waaweyn jirku waxba kuma tarayso marka aadamuhu wuxuu ku nool yahay waa filcelin chemical process ka dhexdhacaya jirka bini'aadmiga cuntada lafteedii dib baa loo karkarinayaa jirka bini'aadmigu wuxuu ka kooban yahay 38 trillion oo cells seelku waa ilma aragtay cadadka intaa la eg tirada intaa la eg seel walba waxaa la rabaa in nafaqadiisii ay ugu tagto meeshiisii oo halkaa ku helo cuntadii markaa beerku wuxuu qabto waxa weeyaan waxa la yiraahdo metabolic process waa filcelinta chemicalka jirku cuntada aan cunno waxa uu ku sameeyo shaqada noocaas waxa qabanaya waa chemicalkaas waa beerka weeyaan marka beerku wuxuu ka qayb qaataa shiiditaanka dheefshiidka wuxuu ku sii daayaa dheecaano muhiim u ah cuntooyinka cuntadii waxaa loo baahan yahay in loo bedelo energy ama tamartaas oo wax kale iska daaya hadda farta aan sidaa leeyahay waxa u baahan tahay waa tamar fartaa la'aanteed ma dhaqaajin karo isha biliq inaad ka siiso wax kale iska daa inaad neefsato waxa loo baahan yahay waa energy weeyaan inaad shaqo qabato inaad dhaqaaq samayso waxaas oo dhan waxa kuu qabanaya waa beerku waxa kale uu ka qayb qaataa wax alla waxa sun ah ee jirka ku jira qashin saar ayuu u sameeyaa waxa kale oo ka qayb qaataa beerku cuntooyinkan iyo waxyaabahan cunayna borotiinka ku jira iyo bakteeriyadu marka caloosha waxa jira bacteria jirkaaga muhiim u ah oo caloosha ku jirta marka labadaas markay iska dhaxdhacaan the end product of protein waxa ka dhasha waxa la yiraahdo ammonia ammoniyadaasi waa sun aad iyo aad jirka bini'aadmiga haddii ay ku nagaato oo beerku uu saari kari waayo waxaan u jeedaa beerku marka uu bedeli kari waayo ammoniyadii uu bedeli kari waayo urea jirka si looga saaro marka beerku ammoniyadii wuxuu u bedelayaa wax la yiraahdo ureadii ayaad markaa kaajaysaa oo kaliyaha ka saaraya laakiin hadduuna marka hore u bedelin beerku urea kaliyuhu ma saari karaan sunta la yiraahdo ammonia hadday jirka ku nagaato qofka waxa ku keenaysaa xanuuno fara badan hadday maskaxda u talowdana waaba ka weeyaan waayo maskaxda bini'aadmigu laba shay un bay quudataa wax kale hadduu talaabo waa khatar maskaxdu waxay quudataa oo keliyata waa glucose iyo hawo labadaasay quudataa marka beerku shaqooyinkuu qabta waxaa ka mid ah maxaa kaloo beerku kuu qabtaa kaydinta vitaminiska ayuu kuu qabanayaa maxaa kaloo kuu qabtaa inuu kuu kaydiyo glucose uu jirku isticmaalayo oo de glucose jirku wuxuu u baahan yahay iminka mararka qaarkood markaad gaajooto kale eed muddo joogto dadka bini'aadmiga waxa la yiraahdaa muddo yara qatanaan karaa ilaa dhowr iyo 10 cisho naftu ku jiri kartaa baa la yiraahdaa
intaa qofku muxuu isticmaalayaa storagekii glucagontiisii buu isticmaalayaa oo loo bedelayaa kolba waxa la yidhaahdo glucose shaqada noocaas waxa kuu qabanaya waa beerka maxaa kaloo ka qayb qaataa beerku dheecaan kale oo waxa jira la yidhaahdo bile oo beerka ka qayb qaata saxarada in saxaradaadu ur fara badan ayna yeelanin wuu ka qayb qaadanayaa beerku waxyaabaha kale uu qabto waxaa ka mid a in uu daawooyinka uu qofku isticmaalo ama waxyaabo kale oo sun ku noqon kara jidhka bini'aadmiga inuu ka saaro shaqooyinka noocaas oo dhan markaa beerka ayaa ku qabta markaa beerka waxaad garan kartaa hadduu xanuun ku yimaado cilada ku iman karta oo xanuunkaasi ku keeni kara beerka waxa muhiima markaa xanuunkan cagaar showga wax kasta oo cagaar show ama midabka jaundice sameeya ma xanuunka hepatitis baa maya jaundiskan iyo way kala duwan yihiin waxyaabaha kale ee jaundiska loo malayn karo ee xanuunkan la xidhiidhin kan isaga waxaa lagu garan karaa waa cagaar showga indhaha iyo bishimaha anqalaalka inahaasoo dhan buu qofku mataqaanaa yellow discoloration of skin baa dhacaya oo inaha ku saabsan laakiin kuwa kale jirka kale iyo meelo kale wuu ka duwan yahay isagu marka cagaar show waxa keeni kara oo midabka noocaasa keeni kara waxa weeyaan waa gallstone beeryarta oo ama xamaytida inay taan u malaynaya beeryarta af Soomaali kuma garanayo labada midkood hadduu ku samaysma dhagax bile ductigii iyo dhacaankii noocaas haba xidhmaya qofku markaa jaundice waa lagu arki karaa midabkiisa waxa kaloo iyaduna jirta inflammation of the gallbladder hadduu caabo ku dhaco ama inflammation ama infection ku dhaco isla beeryarta iyadana qofku jaundice uu yeelan karaa midabkiisa waxaa kaloo iyaduna jirta bilirubin wax la yiraahdo haddii bilirubin wax kasta jirka bini'aadmiga dhiigga ayuu la socdaa markaa wuxuu leeyahay level lagu talagalay hadduu levelka markaa bilirubintu uu kor u kaco iyaduna qofka jaundice baa ku dhacaya midabka noocaasa oo waxyaabaha laga garanayo waxa kaloo jaundice keeni kara waxa weeyaan hadduu qofku cabo alcohol aad u fara badan waxa kaloo keeni kara xanuunada la yiraahdo autoimmune disorders jirka bini'aadmigu waa sida ciidankoo kale ayuu u tababaran yahay difaac buu leeyahay marka wax kasta oo jirku uu arko inuu ku soo duulay reaction buu ka bixinaya marka qaarkii markaa isaga laftiis ayaa iska hor imanaya oo moodaya inuu isku soo duulay cadowgu isu arkaya xanuunada noocaasa markaa waxa ka yimaadana iyaduna jaundice wuu keeni karaa laakiin jaundiskan caadiga hepatitis waa mid ka duwan weeyaan waxaan u galaynaa markaa xanuunkan maxaa lagu gartaa calaamadaha lagu gartaa xanuunkan maxay tahay horta mar kasta oo beerka uu xanuun ku dhaco oo beerku shaqadiisa uu soo gabayo maadaama nidhi beerku wuxuu ka qayb qaataa dheefshiidka marka calaamadaha ugu horeysa ee beerka infillarity uu ku imanaya lagu garanayo kow waxaa ka mid noqonaya yaqyaqsi iyo hunqaaco yar oon joogto ahayn kadib qofku waxaa ku dhacaya loss of appetite waxa weyn waa waxa ku yaraanaya mohoshada ama qaadashada cuntada waxa kaloo ku dhacaya yellow discoloration of skin and eyes indhihiisa ayaad si toos uga garanaysaaba midab cagaar aad ku arkaysaaba indhihiisa markaas aad tiraahdo ama bishimihiisa ama hanqalaalka qofka laftiisa baad ka garanaysaaba in midabkiisu isbedelay waxa kaloo ku arkaysaa dhinaca midigta ah oo beerku ku yaalo ayuu qofku xanuun ka dareemaya xanuun buu ka dareemayaa qofku dhinaca midigta ah waxa kale oo ku arkaysaa qofka qaba xanuunkan xumad baad ku arkaysaa waxaad ku arkaysaa oo waxyaabaha lagu garta ka mid noqonaya daal qofku ilan dheefshiidkii iyo tabartii iyo waxyaabihii ku awoodeysanaya waxaan nidhi iminka dhaqdhaqaaqa yar iyo xarakaadka aan samaynaya waxaad u baahan tahay energy marka maxaa dhacaya waa daalaysaa kursiganba kama kici qoro qofku dhaqdhaqaaq yar ma samayn karo dhinacaasaad uu daalayaa qofku markaa maxaa kalood ku garanaysaa xanuunkan kaadi midow baad ku garanaysaa dark urine kaadidaada isbedelaysa kaadida midabkeedu waxaa la yidhahdaa ambar midabka ah aduu kaadida midabkeedu waxaa la yidhahdaa ambar af Soomaali exactly suu ku noqonayo maadaama dad wuxuu sharaxaya ma jecli in erey khaldan aan ku macneeyo laakiin midabkii kaadida ee caadiga ah uu isbedelaya wuxuu noqonayaa madow
waxaa kaloo lagu garanayaa saxarada qofka bini'aadmiga waxay noqonaysaa midab yaro cadiin oo kale ah sida cadiinka yaro dambaska u yaro dhowaanaysa xaggaasa u ilanaysaa cadiin taasna waxaa calaamadaha lagu garto maxaa kaloo yeelanayaa qofku saxaradiisu inta badan waxay noqonaysaa offensive ah mid ur badan bay noqonaysaa ilaan waxaan nidhi baylkii iyo dhacaanka noocaasa ah haddii beerku uu gabo ee yaraynayey urka maxaa dhacaya markaa saxaradii qofku waxay noqonaysaa mid aad u ur badan maxaa kaloo qofku yeelanayaa oo kale marka qaarkood cuncun buu yeelanayaa oo maxaa nidhi kimikaalkii la odhanayey ammonia maxaa hoos u dhacaya jidhkii maadaama qashinsaarkii uu yaraanayo beerku ammoniyadii baa ku yara hadhaysa marka qofkii maxay ku keenaysaa cuncun fara badan wuu isxoqayaa qofkii marka intaas waa calaamadaha lagu garto sidee loo kala qaadaa xanuunkan sida loo kala qaada inta badan xanuunka HIV AIDS-ka ayay isku dhow yihiin xanuunkan waxaa lagu kala qaadaa dhammaan wax kasta oo qofka xanuunka qaba dheecaanka jidhkiisa ku jira oo dhan ama dhiigga ama manida waxyaabahaasoo dhan waa laga qaadayaa cudurka waxaa laga qaadayaa oo kale dhiig in qofka lagu shubo haddii xanuunkan qof qaba dhiiggiisa ama aad taabato direct contact ama mataqaanaa lagugu shubo xanuunka waad ka qaadaysaa maxaa kalood ka qaadaysaa qofkii xanuunka qabay irbad lagu muday haddii qofkan kalena lagu mudo ama qalab kale oo isaga lagu qalay ruuxa ama dheecaankiisa istaabteen waxaa kalood ka qaadaysaa waxyaabahan lagu wada xiirto marka qofka kale dheecaankiisa uu taabto ama dhiiggiisu haddii qofkan kalena loo waxeeyo arrinta kale ugu muhiimsan ee weliba labada qof isqaba inta badan way wada cadaydaan cadayga waxa laga yaabaa in iska isticmaalaan cadaygana waa lagu kala qaadaa maxaa kaloo lagu kala qaadaa xanuunkan galmada waayo waxaan idhi xanuunkan sida HIV AIDS-ko kale unbuu dhow yahay galmadana waa lagu kala qaadaa xanuunkan sidoo kale hooyadu marka ay qabto ilmaheedana way u gudbin kartaa marka qodobadaas iyo wixii kale liloobay oo aad la xidhiirinaysaan weliba sida HIV AIDS-ka lagu kala qaado ayaa xanuunkan lagu kala qaadaa xanuunkan markaa sidee loogu hortagi karaa wax kasta markaad garato shayga laga qaado automatically waa inaad garato ka hortagiisuna wuxuu noqonayaa wixii laga qaadayo la iska daayo marka kow dhiig meelaha dhiigga uu mataqaanaa ama ku daatay ama uu taabtay weliba xanuunkan wuxuu aad khatar ugu yahay dadka health professionalka ee ka shaqeeya isbitaalada ama kiliinyada waayo dad noor kasta waxay dhiilgaraynayaan u adeegayaan dad noocaasa khatar bay ku sugan yihiin marka dhiigga waa laga qaadayaa marka dhiigga waa in qofka la baadho waxaa kaloo laga qaadayaa irbadda qofka kale lagu muday waxaa kale oo iyaduna ay noqonaysaa in laga hortago oo qaabka looga hortagaya ka mid noqonaya cadayga wax kasta oo waxaan idhi xanuunkani wixii faafinaya ah the reverse wuxuu noqonayaa sidii xanuunka looga hortagayay hooyadu hadday xanuunka qabto ilmaha way u gudbinaysaa dhammaan dheecaanka jidhka ku jiro oo dhan xanuunka waa laga qaadayaa marka in dheecaanka noocaas oo dhan la iska ilaaliyo waxyaabahaas oo dhan in laga taxadaro waxyaabahan wax lagu xiirto gadhxiirta waxyaabaha noocaasa waxaasoo dhan ee dheecaanka qofka taabta ama dhiiggiisa waxay noqonaysaa waxyaabaha xanuunka faafinaya ee loo baahan yahay in laga hortago waxaa ka mid a markaa arrinta ugu muhiimsan een doonaya carabka inaan ku adkeeyo ee ka hortagga waa tallaal weeyaan xanuunkan wuxuu leeyahay tallaal effective ah oo xarumaha caafimaadka laga helayo oo qofku inuu iska tallaalo ay tahay ilaa inta una ku dhicin xanuunkan markaa waxa ugu muhiimsan ee lagaga hortagi karo waa tallaal daawo ma leeyahay ama kabax ma leeyahay su-aasha ugu muhiimsan xanuunkan kabax buu leeyahay good opportunity arrinta ugu muhiimsan xanuunkan waxaa laga yaabaa dadka badankiisu marka uu ku dhaco iyagoon waxba daawo u qaadanin inuu xanuunka ka bogsado hadduu ka bogsan waayo daawo joogtaa ma leh
wuxuu qaadayaa markaa in beerku shaqadiisii uu gabo inuu ku dhaco cirrhosis wax la yidhaahdo waxaa adkaanaya beerka shaqadiisiibuu gabaya marka beerku markuu shaqadiisii gabo qofka maxaa laga filaya waxaa muhiima markaa oo kale oo aad iyo aad iyaduna muhiim u ah beerku waa organka keliyata ama xubinka keliyata ee qofku haddii in yar u soo hadho ay intaasi u fayoobaato uu kori karaa uu biqli karaa sida dhirtu u biqasho kale ayuu u korayaa haddii xanuunku una wada saamaynin xanuunkan markaa inta badan dadka qaba ama arrimaha beerka ku saabsan oo dhanba waxaad arkaysaa qof si kadisa u dhintay waxaa jira wax la yidhaahdo hepatic coma oo maxaa nidhi beerku markuu shaqadiisa gabo ammooniyadii ayaa u gudbaysa maskaxda ammooniyadaas hadday mar maskaxda u gubtana daqiiqadahaba qofku koobuu noqonaya marka mar alla marka beerku shaqadiisa uu soo gabo ama uu soo yaraanayo waxay noqonaysaa qofku in sikadiisa uu dhiman karo waxa muhiima marka hadda oo xanuunkan uga hadlayay waxa weeyaan saamaynta bulshada Soomaalida uu ku leeyahay oo aad u fara badan maxaa kalifaya inuu aad ugu faafo dadka Soomaalida ah kow xanuunkan oo markaaba calaamad degdeg ah lagu gartaan lahayn qofku muddo dheer buu ahaan karaa career uu xanuunka la noolaan karaa isagoo wax calaamada lagu arag taasi maxay keenaysaa inta badan inagu dhakhtarka waxaan tagnaa marka xanuunku inuu dhul rido ama aynu aragno marka ruuxii isaga oo ah source of infection ayuu dadkii la noolaanaya waayo ruuxu ilaa haduuna isaga isdareemin dadkii kale kama ilaalin karo haddaba xanuunkan waxaan aad uga argagaxay xafiiska caafimaadka waqtigii aan joognay iyo daraasado yar oo kale oo aad u sii fara badnayn oo la sameeyay 300 oo qof oo dhiig laga qaaday ilaa 60 qof baa noqotay positive imagine xanuunkaasi saameyntu leeyahay waxa kale oo jirta daraasado kale oo la sameeyo oo iyaguna saas oo kale sheegaya waxa kale oo jirta bulshada haddaad dhex gasho xanuunkaas sida looga cabaadayo isbitaalada haddaad tagto marka xanuunka noocaasa oo bulshada khatar saa ugu haya awareness fara badan ma jiro dadaal fara badan ma jiro xanuunkii si yar oo silent ah oo qabow dadka ugu faafaya kan maanta aan ka cabaadayno ee coronavirus Soomaali waxa uga daran waliba magaalada Jigjiga ee maanta aan dhex joogno waa hepatitis B virus haddii xanuunka faragelin lagu sameyn waayo oo bulshada laga wacyigelin waayo oo dadka si massive ay isu baari waayaan xanuunkaas wuxuu noqon doonaa xanuunka dilaaga ah ee koobaad ee shacabka Soomaalida ku nool deegaanka Soomaalida kalena dhammaan waa isku mid waa la isku wada talaabaya marka waxaan ku soo gabagabeynayaa xanuunkan ahmiyadiisu ma aha si scientific inaad u barataan laakiin kow sida loo kala qaado waan idin sheegay oo dhammaan waxa dheecaana ama dhiig ha noqdo ama mani ha noqdo waxaan idin sida AIDS-ka loo kala qaado ma loo kala qaado dhiigga dhaacamada kale cadayga waxa soo dhan sida looga hortagana wuxuu noqonayaa in waxyaabahaas oo dhan aad ka taxadarto arinta ugu muhiimsan ee raba inaan carabka ku adkeeyo waxa weeyaan xanuunkan noocaasa talaal mar haduu leeyahay maxaan soo talaali laanahay bal talaalkii hadii la waayo hal arko laakiin waxa loo baahan yahay dawlad deegaanku inuu xil iska saaro talaal ku filan dadka inta la keeno wacyigelin la sameeyo TV-ga la soo fariisto in degmooyinka iyo maamulada dhammaan la amro dadku talaalka inay qaataan haddii arinta aan la samaynin xanuunkaasi Soomaali wuxuu kaga soo hari doonaa da'yarteeda meel aad u fog oo waqti kale la qoomamayn doono halkaas aan kaga gudbayaa mawduucan